gudoomiyaha gobolka Sanaag taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag maamulka degmada Celefayn Salaadiin Cuqaal waxgarad iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan ayaa si wada jir ah u furay cilbiyad macaan oo riiga oo injineer Jibriil Axmed Cali Yare ka hirgeliyay deegaanka Kalshiikh ee degmada Celefayn gaar ahaan beertiisa oo ku taala deegaankaasi ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay madax dhaqameedkii ka soo qayb galay madashani waxay Jibriil uga mahad celiyeen baahida loo qabay riigbiyadkani macaan ilaahay baa mahad leh halkan wax laga soo saaray biyo uu ka soo saaray ninka la yiraahdo Jibriil Axmed Cali Yare biyahaas waa biyo macaan waa biyo arladan oo manayahayd ilaa halkan ilaa iyo wixii ka hooseeyo nugaa la yiraahdaa waxaan ku dal oo mana way ahaayeen biyo waxay noo soo joogeen iladna halkan waxay ka sii jirtaa 20 kilomitir 25 marka haddii halka ilaahay uu nooga soo saaray ilaahay mahad baan u naqaynaa ninkaas maal geliyay riiga keenay ee soo saarayna way mahad celinaynaa wax buu qabtay qofkuna hadduu wax qabto mahad celin buu leeyahay waxaan leeyahay horta haddaan reer Celefayn weynahay reer Kalshiikhay sinbar waa qaba yeesha oo annagu biyo iyo qudrad baa horta noo daran labadiina meesha waa ku yaaliin biyaha foostada hadda waxaan ka siiyaa $3 warma beeba sheegaya marka ay si kulaato waa ka qaalisanta haddii aanu lacagtii helay oo injineer helay oo ilaahay nasiibka iyaga wanaajiyay dawladda waxaanu uga maganahay dhagaxadaan arkaa iyo taliyii qaybta iyo barasaabkii war nabadgelyada oo noo adkeeyo nabadgelyada waxa kale annaga ku filan annagu haddaanu nahay shacabkan reer Celefayn biyahan aad iyo aad baan ugu baahnayn waa ku hambalyeynaa Jibriil xukuumaduna deewaanba faydniya waxba ay farin wixii xilaahay u leedahay way qabsanaysaa rag firfircoon baa jooga oo taliye qaybeedka iyo barasaabkuba waa rag aad u firfircoonoo inta la farayo meediya ka fari mayne waa inay ku filan yihiin waxaan leeyahay inaynu inaguna khayraadka iyo dalka biyaha inoo soo saaray inaynu kaga dayano annagoo degaankii ka mid ah waxaan leenahay ha lagu daydo runta markaan idin warramayo maanta waa faraxsanahay way biyaha soconaya iyo meeshu siday ahayd ee laga sheekeynayaa baan garanayaa dadku mar haday waxaalaan ama gobolka ha ahaato ama degmada ha ahaatee waa farxaysaa maamulka degmada Celefayn taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa iyana si wada jir ah uga mahad celiyay injineer Jibriil oo hirgeliyay cilbiyadkani macaan runtii waxaan leenahay biyaha waa laga faa'iideysanaya waa biyihii aanu waxay tagayaan Celefayn dariiqay sii marayaan meel kasta marayaan waxaanu diyaar u nahay cidii soo taagta inaan la kaashano oo gacan bir wax laga qabto kaga dul qaadan mayno aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Cuqaasha Salaadiinta waayeelka cid kastoo ka soo qayb gashay cid kastoo waxaan ku yiri halka maxadciinta ugu tibi waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr aad iyo aad baan maanta ugu shukran Ilaahay nimcada uu maanta inoo soo saaray oo nolosha oo dhan Ilaahay ku tilmaamay wax kasto noolba inuu biyaha galiyay wixii aan biyaha la galin noloshu ma suura galayso Jibriil insha Allah waxaan rajaynaynaa in maanta qiyaamo ku abaal mariyo khayrka badan inoo shaqeeyay waxaynu ku talagaleynaa sidii biyaha looga wada faa'iideysan lahaa si nabadgelyo looga faa'iideysan lahaa baan ku wada talagaleynaa shacabkuna maanta cid khayrka diidan ma jirto malaynaya injineer Jibriil Axmed Cali Yare oo ayaan aad ugu hambalyeynaa waxaan leeyahay jazakallahu khayr hadal maanta deegaankeena Kalshiikh oo ummadda ku leeyahay in badan biyo u manayd ilaahay nasiibkaaga ku beegay waxaan ku leeyahay injineer adiga intii kula ka gacan siisay intii kula qoday injineer raadba ilaahay khayradaysiyo runtii maanta xafladan aan joognay waa xafladaha ugu qiimaha badan ceelka aynu xadhiga ka jarayno ee ceel biyoodka ee halka laga sameeyo wuxuu ka mid yahay noloshii degmada Celefayn iyo Kalshiikh oo ah goobta iminka biyaha laga soo saaray inay tahay noloshii ugu horeysay ee maxaa gudhay xagga bulshada horumar loo gaari lahaa waxaad isla wada garateen in biyaha meel fog laga soo qaaday oo 20 kilomitir inoo jirta hadda sida la sheegayo waxa laga yaabaa halkan muddo ka hor saad xusayseen in hooyada iyo maatadu iyo intaan socon karayn bay haraad ugu dhiman jireen waxa way maanta way idinka arkay waa nimcooyinka Ilaahay way marka hore waxaynu Ilaahay ugu xamdiyeynaa Ilaahay inooga soo saaray halka biyaha
waxaan mar labaad mahad celinaynaa iyo injineer jibriil damalaa nin reer bareedo haysataane ilaa galbeed meel aanu waxqabad ka soo qaban loo tirsanaynin ma jirta meel walba waxqabad buu ku leeyahay waa nin maxaan ku dhahay meel walba ajirkiisa kule jazaakumullahu khayr baan ku leeyahay ka abaalmariyo ceelbiyoodkani macaan ayaa noqonaya taariikhda markii ugu horeysay laga hirgeliyay ceelbiyood macaan deegaanka degmada Ceelafweyn gobolka Sanaag waa Maxamed Suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelafweyn